golaha wakiilada gobolka saaxil iyo degmada berbera Mustafa Cismaan Magaalo iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan ayaa maanta xarimo sharafeed qadaa u sameeyay hoggaanka sare xisbiga UCID. xarimo sharafeedka ayay ka soo qayb galeen badiba salaadiinta uqaasha iyo gudida odayaasha kaas laga soo jeediyay kelmado u badnaa taageero iskarab istaag sayaan musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaana xuseen in reerku isku duubni iyo midnimo ku dhisi doono musharaxiinta iyo xisbiga inta ka hadlay سلطان عبد الكريم فريد شيخ عاقل سجال عبد الله عكب قريقان محمود دعالة سليمان قدومي سليمان عقعس يوضي يسوع على النور وأنا هذا ذو كمدها horta yoobka doorashada wixii madaxweynaha waayo reer kan aan koonina maanta anigu laba nin gol dagaana iyo nin xildimaare kuba keen waxa ku keenay meel dhanban ku wareejiyay ilaahay noo aqbalay inaanu isugu nimaado gudoomiyaha xisbiga UCID ilaa heer gobol ilaa heer degmo aad iyo aad ayaanu ilaahay ugu xamd celinayna bacda alxamd gudoomiye waxa la yiri sansaanyo saxba ka horeeya macni waxa la aqbalayo ee ama xuma lagu aqbalayo ama wanaag saxba ka horeeya muuqaal waxa dareento waxaan dee madaxweynenimadii waxaan u malaynayaa saaceed wuu muuqdo hadiya jeeraale dadka daacadaaba ilaahay ku horeysiiya meesha soo baxaysa dadka xun waa laga dambaysiiya suldaankii xildhibaanadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka mustaqbalkan soo socda loogu talagalay jeef caaqilkii anigoo gudoomiyaha gobolka dhaqan iyo ganacsiba intii beesha ka joogtay gobolka berbera ay maanta kugu soo wareegtay annagu labada xildhibaan ma wadno gudoomiye laga gudoon labada xildhibaan ma wadno reerkii waa xisbiga UCID Cabdulle reeraha imka runtu ku dambaysa baanu nahay aan baasha galaamin haddaad dhaqanka ka baxdo oo galaamiska siyaasadda xoog ku gasho reerku run xagga ilaahay waa ka kharaaba run marka la sheegayo weli waxaanu nahay reerka ku dambeeya dee ramaax oo kale oo madaxda siyaasadda meeshayada ayaa kula fadhiya Saciid UCID baa kula fadhiya maadaama reerkii runta uu ku soo galay sansaanyii weeyi madaxweynenimada intii hore dhan run baan ku sheegayaa xal baynu ahay imaka xulkii sida habeenkii dhawada noogu sheegtay waa imaka waxaynu doonaynaa 3 wax naga dhaqaaji gudoomiye inaga dhaqaajiya isugu nimi gudoomiyaha xisbiga UCID in la fadhiyo iyo kale sharafta leh mas'uuliyiintiisa kale iyo bahweynta kale Cabdullaah soo qayb gashay cidii kale timiba waxaan ku salaamayaa salaanta musliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi warkii waxa dhameeyay suldaanka iyo gudoomiyaha horeeya dhameeyo hadalku maxaa hadhayba ayaa la yiraahdaa waanu hadhay lama yiraahdo haween sidaas sharafta leh aanu ajiibteen in loogu timaadeen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh marka xiga waxa weeyaan anigu gudoomiye maalin baan adoo shaashad ka hadlaya aad ku jeclaaday markii musharaxiinta ahaydeen tartankii kelmadaad tiri kelmadaas oo ahayd maxaa wariyiba waxaan weydiinay habeenii dambeysay sharciyada islaamka anagu wax ku xukumayna waad waayahay niba saddexdiiniba wax la saaray niba wax la saaray sharciyada islaamka ninka cuskaday qaali weeye waa qaali qofka taa waa kugu jeclaaday ilaahayna iska xusu inaga dhig waxaana weeye sida lagu sheegay labada kelmadood kulankeenan ilaahay baa qadaray inaynu waqtigana ballankana sidii suldaanka yar u sheegeen aynu helo haddii la kariyo xaflad qaban doono haddii la yiraahdo waa idinka sugaynay talabaad inanka inamadii ka horeeyay reerka ahaa ee Cabdiraxmaan soo iyo isaga iyo Cabdiraxmaan codka kala helin gacanta yadaanu ku xidhnaa waxaan ugu xidhnaa reerka u burburay haddaan la ilaalin dhaqanka siyaasadda iyadoo haddana dhaqanka ka tagi mayno inaan munaasabadan maanta ka soo qayb galo reerka aan ka soo jeedo iyo xisbigu ay kulanka ku leeyihiin oo iyadoo qastigu yahay inay
dee murashaxiintii xisbiga reerku keenay la caddeeyay in reerka xisbiga uu keenay odayaasha iga horreeyey oo suudaanku hadalku furay jiifku waa hadlay guddoomiye waa hadlay odayaal badan baa hadlay inta ay yidhaahdeen ayaanu dee la qabnaa inagu mudana guddoomiye hore inuu kulannay dhowr goor oo arrintan uga wada hadalnay idinkoon reer cabdille ka wada hadlin oo aan kula socodsiin reerku dee doortay laba inan codkooda siiyey ku talagayn labadaa inan soo saaraan wuxuu iska reerku isagoo reerabu dee reera si kala noqdaayo qaab reer buu dee wax ku qaybsadaa ama dee qaab reer buu maaragtay reeru wax u eegaan had iyo jeeraale kule reer cabdille taa kama ay tagarayn lami taasoo kalun bay ahayd tiibaasna wuxu dhigtay waxaan salaamayaa guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe oo ah abtigayna ah iyo guddoomiyaasha iyo salaadiinta iyo odayaasha dhan baan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad maanta chance fiican bay noo tahay inaan la kulanno guddoomiyaha iyo garabyadiisii oo la socda waana runtii waxaan uga mahad celinaynaa siday markii horeba noo soo dhoweeyeen xubnaha ku jooga magaalada berbera uu ka mid yahay xogayahaaga iyo guddoomiyahaaga ee gobolka runtii gacmo wanaagsan iyo si wanaagsan waana runtii rag beesheeda ka tirsanoo waxay ogaayeen ogaadeen aanu meel wada soconno markaa si wanaagsan bay noo soo dhoweeyeen inamadii adinkana way qaateen aad baan ugu mahadsannahay runtii gabagabadii iyaguna waxaa halkaas kelmado mahadcelin iyo qaabilaad ka soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucid siciid ucid iyo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waxaanay tilmaameen in loo baahan yahay xildhibaano aqoon leh iyo si dalka lagu badbaadiyo aqoonta musharaxiintu inay yihiin kuwo xul ah oo aqoon-yahanaa iskuma cusbino qolada reer cabdalle iyo xisbiga ucid ilaa intii iminka diiwaangelintu soconaysay waxaanu kulannay in ka badan 5 jeer 5 jeerba waxaanu idiin sheegnay inaanu idinka aqbalnay murashaxiintii aan noo soo gudbiseen waxaa jirtay inaanu aad u mashquulsanayn oon ku wareegaynay gobollada iyo degmooyinka dalku ka tirsan yahay waxaa naga dalbateen in la sameeyo xaflad reer cabdalle ay ku iclaaminayaan inay xisbiga ucid aad soo wada gasheen soo taas maaha taa ma isla aqballe musharaxiintiinnana aad ku soo shaacinaysaan haddii ilaahaymo wakhtiga masajku waa mid keliya haddii ilaahaydmo sabtida ayaanu ballantii idiin soo jaraynaa haddii ilahaydmo ciise muuse wixii iska sharaxay gobolka saaxil qolada koowaad baa noqonaysaa in xaflad loo sameeyo waxaan filayaa in anigoo ka wakiila guddoomiyaha inaan masajka idin soo gaadhsiiyo soo saarno xildhibaano wanaagsan iyo deegaan wanaagsan haddii la hayo hadhow madaxnimada ilaahayna gaarsiiyo hortaan hoosta ka soo dhisno oo aqoontii baa inaga xumaatay imankana aad baa farti nugu godinta waxaa leeyahay xakiin xoogsadii telefishinka Somali Channel berbera